Horaantii Agoosto 2018 markay 13 mareysay waxa uu dilay xaaskiisa Shanaan oo uur u leh iyo labadiisa gabdhood. Waxa uu marka hore ceejiyay Shanaan oo aan ka filayn inuu ninkeeda dili doono. Way awoodi weysay inay iska celiso ama ay samayso iska caabin. Balse waxaa la yaab noqotay markii gabadhiisa ay aragtay markuu dilayay hooyadeed kuna tiray ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. Mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. daawadayaal soo dhawaada, waxaan idinla wadaagayaa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday dalka Mareykanka sanadka markuu ahaa 2018 bishii Agoosto, waxayna ka dhacday gobolka Colorado. run ahaantii dhacdadan waa mid aad iyo aad u argagax badan oo qof kasta maqla walwal gelisa. Waxayna ku bilaabatay Christopher iyo reerkiisa. Christopher Lee Wattis waxa uu ku dhashay kuna barbaaray waqooyiga Carolina ee dalka Mareykanka sanadka markuu ahaa 1985 16 May. yaraantiisa Christopher waxa uu ahaa wiil fariid ah oo aad u firfircoon kuna fiican dhanka waxbarashada iyo weliba fahamka guud. waxa uuna geli jiray kaalmaha ugu horeeya iskuulka iyo dhammaan waxbarashada qaybaheeda kala duwan. Christopher waxa uu ka soo baxay iskuul lagu magacaabo Iceland. markuu dhameeyayna waxa uu Arts and Design ka bartay college lagu magacaabo Massachusetts. waxa uu ahaa wiil aad iyo aad u degan, dabeecad ahaanna aad u wanaagsan. dadka magaaladiisan waxay ku ammaani jireen inuu yahay wiil fariid ah, ixtiraam badan oo aad u wanaagsan. Christopher waxay isbarteen gabar lagu magacaabo Shanaan sanadka markuu ahaa 2010 wuxuuna ku bartay isla magaaladii uu ku dhashay ee North Carolina. asiga iyo Shanaan waxaa dhexmaray xiriir aad iyo aad u qurux badan iyaga oo wada socday ilaa 2 sano. markuu xoogsaday xiriirkooda oo kalsooni yeeshay gaarayna inay nafta isku huraan oo midba midka kaleeto uu jeclaado, waxay go'aansadeen inay isguursadaan. sanadka markuu ahaa 2012 November 3 ayay isguursadeen iyagoo ahaa dad aad isku fahansan. maadaama ay muddo soo wada socdeen xiriirkoodana ay soo dhiseen, way ku guuleysteen inuu guurkoodu si hagaagsan ugu dhaco. Christopher waxa uu howlwadeen ka ahaa shirkad saliidda soo saarto. Shanaan iyadana waxa ay si online ah u iibin jirtay alaabaha yaryar iyada oo gurigeeda iska joogtay. waxayna caadiyan ahayd gabar xoogga saarto gurigeeda iyo arrimaha hoygeeda iyo ilmaheeda iyo dhammaan wixii lagu yaqaanay dumarka inay mar walba ay xoogga saaraan. Shanaan waxay dhalatay iyada 10 January 1984 iyadoo ka weyneed Christopher 1 sano. Shanaan waxay ku dhalatay gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka, waxayna ku barbaartay ayna iskuulka sare ku dhamaysay gobolka North Carolina. sida aan horey idinkugu soo sheegay, Shanaan iyo Christopher way isguursadeen. hase ahaatee sanadka markuu ahaa 2013 December 17 waxaa u dhalatay gabar, waxayna ugu magac dareen Bella Mary. aad bay ugu farxeen gabadhooda, waxayna noqotay noloshooda mid dhammaystiran oo farxad iyo jacayl ku dheehan tahay, ileen familkii oo dhan baa dhammaystirmay. muddo kadib waxaa u dhalatay haddana gabadhoodii labaad oo ay ugu magac dareen Sileta. sanadka markuu ahaa 2015 July ayayna u dhalatay. run ahaantii aad buu u xiiseynayay Christopher inay u dhalatay gabar labaad, wuuna ku faraxsanaay maxaa yeelay aad buu u jeclaa gabdhihiisa. sidaas degan ayay noloshooda ku socotay, wayna sii wateen. haddaba familkan quruxda badan oo dhammaystiran maxaa ku dhacay noloshooda? maxaana dib dambe ka soo baxay? sababta loo hadal haayo idaacadaha dhan ay u soo boosti gareeyeen maxay tahay? waxaa dhacay isbeddel aad u weyn. reerkan deganna waxaa ku soo biiray oo u bilaabatay musiibadii ugu weyneed noloshooda markii uu Christopher ay isbarteen gabar lagu magacaabo Nicole Kensiger. sanadka markuu ahaa 2018 ayay ku soo biirtay noloshiisa, waxayna isku barteen goobtiisa shaqada. isla markiina waxaa dhexmaray xiriir aad u degdeg badan ilaa Christopher uu nacay aadista gurigiisa, waxaana gabi ahaanba uu dhibsaday inuu la hadlo xaaskiisa ama uu la kulmo ama uu la ciyaaray ilmihiisa markuu bartay gabadhan lagu magacaabo Nicole. dhanka kale Shanaan iyada waxay leedahay uur oo wiil ayay caloosha ku sidaa, balse markaan sidoo hore ma uusan u xanaanay jirin ilaa waa nin naag kaleeto jaceylkiisa siiyay. Shanaan aad ayay ugu walwashay isbeddelkan xooggan ay ku aragtay ninkeeda, ilaa naagta ninkeeda way dareemaysaa markuu isbeddel ku imaadee. waxay mar walba ku dhihi jirtay miyaadan guriga imaanayn xilli hore, waan kuu xiisnaa aniga iyo ilmahaaga.
balse dhag uma dhigi jirin hadalkeeda, mana uusan ka jawaabi jirin. Christopher si uu u soo jiito gabadha cusub ee saaxiibtiisa, waxa uu mar walba ku dhihi jiray, waxaan rabaa inaan midoowno anigii adiga oo nolol samaysano. Xaaskayga iyo aniga waan iskhilaafnay, waan isfahmi la'nahay, waxaan baana dhex maray, waxaan rabaa inaan kala tagno. Sidaan bay ahayd. Yacni naagtii wuxuu isku dayay inuu ku soo jiito erayo uu ku duraayo xaaskiisa. Nicole aad ayay ugu faraxday hadalkaas, waxayna la sii waday xiriirkii la yaabka badnaa ee sida degdega ahaa u weynaaday, iyada oo kula daahi jirtay goobta shaqada, kadibna gurigeeda ayuu u raaci jiray. Isla sanadka 2018 ayuu Christopher waxa uu qorsheeyay sidii uu ku qaarijin lahaa xaaskiisa oo uur u leh iyo labadiisa gabdhood, uuna uga baxo noloshan cariiriga uu ku dareemayo. Waa cajiib. Horaantii Agoosto 2018 markay 13 maraysay, waxa uu dilay xaaskiisa Shanaan oo uur u leh iyo labadiisa gabdhood. Waxa uu marka hore ceejiyay Shanaan oo aan ka filayn inuu ninkeeda dili doono. Way awoodi weysay inay iska celiso ama ay samayso iska caabin, balse waxaa la yaab noqotay markii gabadhiisa ay aragtay markuu dilaayay hooyadeed, kuna tiri, aabbo maxaad samaynaysaa? naxariis daranaa bismillaahi. Kadib labadii gabdhood ayuu haddana neefta ku celiyay. Bella oo ahayd 4 sano jir iyo Silaata oo iyadana ahayd 3 sano jir ayuu isla sidii nafta u dhaafiyay. Bal maxay galabsadeen carruurtan iyo hooyadood? Isla markiiba dambibaarayaasha waxay ogaadeen in Christopher uu dilay qoyskiisa. Waxaa jiray muuqaal ay duubtay kaamirada ku xiran albaabka gurigooda habeenkii la waynayay hooyada iyo gabdhaha. Kadib waxa uu saaray meydka baabuurkiisa, waxayna saarnaayeen ilaa 50 daqiiqo. Maalintii xigtay ayaa waxaa laga soo wacay iskuulka, waxaana lagu dhahay, aaway gabdhahaaga? Asagana wuxuu ugu jawaabay, weli ma aysan soo bixin. Isla markaasna waxaa codkaas duubanayay dambibaarayaasha oo aad uga shakisanaa Christopher habdhaqankiisa. Ilaan dil ma qarsoomee. Dambibaarayaasha waxa ay weli aysan ogaanin meesha uu ku qariyay meydadka gabdhaha iyo xaaskiisa, laakiin way dareemeen inuu asaga dilay. Si ay u soo saaraan, waxay doorteen inay si qasab ah u weydiiyaan su'aalo. Markii Christopher aabihiisa uu imaaday Colorado, asaga hortiisa ayay ku su'aaleen. Ugu dambeyn wuu isdhiibay. Gacan ku dhiiglahan arxanka daran wuxuuna qirtay inuu gacantiisa ku dilay familkiisa oo dhan, oo wuxuu dhahay way dhinteen, mana soo laaban doonaan. Sidoo kale waxa uu sheegay meesha uu ku qariyay meedkooda. Shanaan waxa uu ku duugay meel u dhow shirkadda uu ka shaqeeyo ee saliidda. Labadiisa gabdhoodna waxa uu ku riday fuustooyinka saliidda ceeriinka ah ay ku jiraan. Arxan darana wuxuu u muuqday nin aan waxba geysanin oo aan waxba dhibaato geysanin. Murugana way ka muuqatay maadaama uu familkiisa waayay. Run ahaantii waxa uu ku sameeyay familkiisa waa xad dhaaf, mana ahan wax bini'aadanimo ah. waxaa bilaabatay maxkamadeyntiisa Christopher bishii November isla sanadka 2018. waxaa maxkamadda imaatay sida caadada ahayd dadka dacwada qabo iyo dhammaan dadka oo laga dacwo qabo iyo dadka kale oo ka soo qayb galaanba. Shanaan reerkeeda ayaa waxay qabsadeen mikrofoonka ayagoo u doodaya xuquuqda gabadhooda. Aabaheed ayaa bilaabay, waxa uuna dhahay oo maxkamadda horteeda ka sheegay in gabadhiisa ay ahayd gabar aad u naxariis badan oo dadkana ay jeclaayeen, iyadana ay jecleed. waxayna ahayd gabar nolosha aad iyo aad u jecel, habdhaqankeedana waxa uu ahaa mid aad iyo aad u wanaagsan. Christopher asiga uu la hadlaayo aabaheed wuxuu ku dhahay, adiga waxaan kuugu aaminay gabadhayda inaad ii ilaaliso, laakiin ma ahayn inaad disho. waxaad u dishay si naxariis daro ah, waxaadna ku duugtay god. Bella iyo Silaata oo ahaa gabdho qiimo badan oo ay ku dhashay gabadhaydana waxaad ku riday fuustada saliidda ceyriinka ah. miyaadan naxariis lahayn? waxaad ku samaysay fal argagax leh ay ku raaxayso adigana xabsiga inta ka dhiman weliba noloshaada. Intaas ayuu ku soo gabagabeeyay hadalka aabaha Shanaan oo aad iyo aad u murugeysnaa. 6 November 2018 ayay soo gabagabowday maxkamadeynta Christopher, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im inta ka dhiman noloshiisa. waxaase ka fiicnaan lahayd in lagu xukumo dil maadaama uu dilay 4 qof, naagtiisa oo xaamilo ahayd oo caloosha uga siday wiil iyo labadiisa gabdhood. haddaba daawade, maxay kula tahay adiga? maxaana kaaga baxay qisadan argagax leh? ma jeclaan lahayd in lagu xukumo xabsi daa'im mise waxaad jeclaan lahayd in lagu xukumo dil maadaama uu dilay 4 qof?